waad guulaysan kartaa. waxaad haysataa hadiyadda ugu saraysa dunida, taasoo ah waad nooshahay. sidaa darteed ma jirto waxaadan qaban karin, qofna kaama joojin karo inaad riyooto ama hadaf yeelato. adiga keliya ayaa isjoojin kara inaad ka lumayso riyadaada. guulahaaga waxaa xididaya kartida iyo awoodda aad leedahay. aamin alle, aamin qofka aad tahay, aamin waxa aad qaban karto. guushu ma ahan wax iskaga yimaada, adiga ayay kugu xidhan tahay, adiga ayaa ka mas-uul ah. ha hilmaamin inaad guulaysan karto xitaa haddii aad isku dayday dhowr jeer haddana fashilantay. xiriir kaa xumaaday, xil aad weyday, ama xoolo kaa khasaareen, xilli dambe ayaad go'aansatay. haddii aad rabto inaad dib u soo abaabusho, aadan hubin halkii aad ka bilaabi lahayd. si kasta aad u dhaqmi jirtay dhibaato badan oo horay kuu soo maaray ama ku soo gaaray, waad guulaysan kartaa mar kasta. waxaad u baahan tahay keliya aaminaad, aqbalid, go'aansasho, dadaal iyo doonid badan. xasuusnow, waad ka geesisan tahay sida aad aaminsan tahay, waad ka qiimo badan tahay sida aad isu haysato, waad ka saraysaa sida ay dadku ku arkaan, waad ka xoog badan tahay sida aad u muuqato, waad ka aqli badan tahay sida aad u fakirayso. aamin kuna kalsoonow naftaada, alle tala saaro, xiigso iyo xaan sare yeelo hal abuur. ku dadaal inaad wax micnolaha ku soo kordhiso adduunkan, uguna tagta dhaxal waare. ka faa'iidayso fursaddan dahabiga aad nooshahay. ku noolow nolol nadiif ah, alle ayaa ka raali ahaanaya insha allah. allah ku gaarsiiyo guulaha nolosha aad tiigsanayso kuna haminayso.